asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada warka xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn warkanan waxaa ka mid ah macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte oo rajaynaya in Dani Alves uu ku soo biro kooxda Inter Milan. Neymar Jr oo wax walba u sameynaya sidii dib ugu soo laaban lahaa kooxda Barcelona. Isku aadka wareegga sideedamaadka Copa America oo la sameeyay Brazil iyo Argentina oo macquul ay tahay in semifinalka isku aadi karaan. Jose Mourinho oo qabanaya xilka tababarnimo kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo kulamadii Copa America koobka qaramada qaaradda Africa World Cup-ka gabdhaha ayaan idinkugu soo gudbin doona natiijooyinkii ugu dambeeyay iyo kulamada dhici doona. balse dadku cusubta channelkan subscribe inoo saar. waxaan ku hormaraynaa macalinka kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte ayaa waxa uu markaa rajo weyn uu ka qabaa in dib ugu soo celiyo Serie A dalka Talyaaniga ciyaaryahanka reer Brazil ee Dani Alves oo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain u ciyaarayay xilli ciyaareedkii dhamaaday ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu gabi ahaanba uu isaga tagay kooxda kubadda cagta PSG iminkana uu yahay ciyaaryahan free ah kooxdii doonana uu aadi karo. laakiin Alves ayaa waxa uu aad u xiiseynayaa inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore ee Barcelona. laakiin macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte ayaa waxa uu tallaabo u qaaday sidii uu xidigii hore ee ugu ciyaarayay Barcelona Juventus dib ugu soo celin lahaa Serie A dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda Inter Milan. sida lagu daabacay France Football ayaa waxaa la sheegay in macalinka cusub ee kooxda Inter Milan Antonio Conte uu weydiisanayo in ciyaaryahan Alves uu yimaado gudaha dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda kubadda cagta Inter Milan. macalinkan oo shax ahaan aad u jecel 3-5-2 inuu ciyaaro ayaa waxa uu ku qanacsanaan lahaa in ciyaaryahan Alves hadduu yimaado Inter qaab ciyaareedkiisa uu ku haboonaan lahaa. 36 jirkan ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan weli da'diisa halka ay jirto iyo waxqabadkiisa aan islahayn, laakiin isagu laftigiisa kooxo waaweyn ayuu aad u doonayay Alves inuu aado gaar ahaan kooxdiisa hore Barcelona. la arki doonay halka uu caga dhigan doono. dhinaca kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr ayaa waxa uu sameynaya wax walba uu dib ugu laaban karo kooxdiisa hore ee Barcelona. Neymar ayaa waxa la xaqiijiyay in uu doonayo inuu dib ugu laabto garoonka Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona ay ka ciyaarto ama ay ka dhisan tahay. Neymar oo ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain oo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan ee adduunka ee markaasi rikoor ahaan hore loogu iibsaday ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore Barcelona isagoo ka shalaayay inuu ciyaaro kooxda Paris. ciyaaryahan Neymar Jr ayaa waxa uu doonayaa ayaa la yiri in uu dib ugu laabto kooxda. waxaa lagu soo waramayay in ciyaaryahankan waxyaabaha uu sameeyay doonista inuu dib ugu laabto Barcelona ay kamid tahay mushaarkiisa uu hoos u dhigay si markaa Barcelona ay u ogolaato in dib ugu laabto. ciyaaryahankan ayaa waxaa la sheegay in 3 meelood meel uu ka tagayo mushaarkii uu ka qaadan jiray kooxda kubadda cagta Paris maadaama Barcelona uu doonayo inuu dib ugu laabto. Neymar oo mar warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inuu Realna rabin kooxo kale aan rabin laakiin uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Barcelona. dhinaca kale isku aadka wareegga sideedamaadka Copa America ayaa la sameeyay. sida isugu aadeen ayaa waxa markaasi ay kaliyihiin isku aadkan maadaama 8 xul ay isku soo hareen oo iyagiina markaasi la isku aadiyay. waxa ay sarki doonaan 27ka bisha June Brazil iyo Paraguay ayaa isqaban doona. waa ciyaarta ugu soo horeysa ay noqon doonta 28ka June. waxaa wada ciyaari doona Venezuela iyo Argentina. sidoo kale waxaa 28ka isla June wada ciyaari doona Colombia iyo Chile. waa kulanka ugu adag markaasi la ciyaari doona ayuu noqonayaa kulankaasi. sidoo kale kulamada xiga 29ka dhici doona waa Uruguay iyo Peru ayaa wada ciyaari doona. 8daas xul ayaa soo baxday, laakiin waxaa macquul ayaa la leeyahay in ay isku dhacaan labada xul ee Brazil iyo Argentina. waa haddii Brazil Paraguay ay ka soo adkaato Argentina ay Venezuela ka soo adkaato.
weli warkan ayaan ku guda jirnaa macallinkii hore ee kooxda Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa macquul ayaa leeyahay inuu qabto xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta Newcastle United. Jose Mourinho ayaa uga cadcad ayaa leeyahay shaqada tababare ee kooxda Newcastle United kadib markii uu xaqiijiyay in tababare Rafael Benitez uu ka tagayo kooxda kubadda cagta ee Newcastle. Heshiiska Rafael uu markaa kula joogo kooxda Newcastle United Premier League ka dhisan ayaa isbuucyo kaliya ka harsan oo markaa uu ka tagi doono kooxda kubadda cagta Newcastle. Jose ayaa kamid ah macallimiinta sida weyn loo xiriirinayo in kooxdan ay qabtaan ama xilka tababarnimo ay la wareegaan. Jose sababaha markaas loo sababeynayna waxaa lagu tilmaamay in taageerayaasha kooxda Newcastle ay aad u jecel yihiin Jose, sidoo kale kooxdu iibsanayo maalqabeen Carab ah oo markaa ciyaartoy culusna la keeni doono kooxda. Josena ku dhiiran karo in kooxda markaasi uu qabto. ugu dambeyntiina xululka gabdhaha ee koobka adduunka ayaa dalka Faransiiska ka soconaya. xalay laba xul ayaa haray, laba xulna way soo baxeen. Spain iyo sidoo kale Mareykanka ayaa wada ciyaaray. Mareykanka ayaa adkaaday oo Spain 2-1 ayaa loogu adkaaday. sidaasi ayaa Spain ku hartay. Sweden iyo Canada ayaa wada ciyaaray. 1-1 ayaa Canada ku soo loogu adkaaday oo Sweden ayaa soo baxday. koobka qaramada qaaradda Afrikana waxaa wada ciyaaray Ivory Coast iyo sidoo kale South Africa. 1-1 ayaa markaasi Ivory Coast ay ku adkaatay. dhinaca kale Kenya iyo xulka qaranka Algeria 2-1 ayaa Kenya loogu adkaaday. Tunisia iyo Angola 1-1 isla dhaafi waayeen. Mali iyo Mauritania 4-1 ayaa Mali ku adkaatay.